haddii waddankii la isugu yimi oo dad kaloo diibo kale wataa ay joogaan dee haddii masaajid dhisanayeen haddii cibaadaysanayeen haddii iyagu dastuurkooda saas ku raaceen oo dadkii xataa dee dowladnimadii qayb laga noqday maanta ingiriiska waad ka warhaysaa iyo maraykan iyo xataa sida dowladnimadeeda inagoo soomaaliya aynu ugu dhex jirno marka muslimiinta kale laga yimaado maanta haddii soomaali la odhan lahaa 90% baa muslimiin sunniya ah ama muslimiina 10% kale waa diibo kale ay haystaan sida masar 5 milyan kirista ay ugu nool yihiin qodobkaas dastuurka lagu qoraa khalad baan ugu arki lahaa laakiin walaal 99.9 iyo 90 kale dad muslimiin oo sunniya bay nahay qodob sax baan u arkaa waxaan inta ahayn wadankayga lagu ma faafin karo haddii laakiin waxaan kugu wada 10% uu barxi lahaa 10% haade qodob khaldan buu noqon lahaa marka taa tusaaleeyga ma dhigi kartid ingiriiska oo ay cid kasta diin kasta ku nooshahay cid kasta ku nooshahay muslimkuna xaq leeyahay kiristuna xaq leeyahay khaniiskuna xaq leeyahay almaaniguna xaq leeyahay mulxiskuna xaq leeyahay intii bay ku wada nool yihiin aniga cidii ma taraxdo anu muslim barax tiran baan oo ka tahay aadano fiiri statistics ka isticmaalaysid ama tirakoobka iyo cadadka isticmaalaysid wuxuu ku dhisan yahay fallacy sababta ugu dhisan inuu ku sheegay wax reality ku dhisan ma sababta marka tiraahdid haddaan ka maqlo kristaan baan ama yahuudi baan ama diin lawana waa ku dilaya anigu ma eeg walaal ka daa adiga kama hadlayo مبارك ما يحبونسا كونا كونا يراد يرسلين الجلسات دول سبحان الله يقول الدلكن as long as aadan waxaygiya aaminaadayga ku xad gudbaynin aaminaadada xorba u tahay ilaahay baa ruqsadan ku siiyay ilaahay baa dhif man shaa falyu'min man shaa falyakfur taa halka idhi anu baqasan taagan maalinka laakiin aaminaadayga ku soo xad gudubto muwaarigo madaxan ka jaraya xad gudub maalinka meesha yimaad taa halka iga daayada ayada fiiri laba shay baa isku dhaxqasay marna waxaad u boodaysaa aragtidaada shakhsiyadeedka aadan sahanahan iyo fahamka aad ka wadatid taasna waa sababtan hadday ku dhahayo diinta intii hal aayad ama hal xadiis 20 qof akhriyaan bay 20 fikir kala duwan ka qaadan karaan adiga waxaad leedahay cid aan dilaayo mala cid walba iga amaan helaysa cidna kuma xad gudbay igu soo xad gudbin ma faham in islaamna waa sheeganay aragtidaada waa aragti qurux badan oo qof bani aadam oo saliim oo aqligiisu shaqeeyo caafimaad qaba ka imaanaysa kuma cambaaraynayo waa wax wanaagsan laakiin sadadku kula mid ma aha kutubta ee dadku wax ka akhristaana waxa adiga sheegaysa aadan kuma qoran hay adiga islaamnimadani dad baa gaariyay baariga aan ku dhamay haboodi fiiri kutubta haday ku qoran tahay haddaad soo baxdo waan ku dilaya haddana aan dhaho percentage-kaaga anaa go'aan ka gaarayo oo ma jirtid wax qaban kara ba horta iyo ogolow inaan dhihi karo waxaas iyo waxaasaan ahay ka bacdi baa ogaanaysaa percentage-kaagu intuu leeyahay laakiin haddaad hado car soo bax ka bacdina warqadii aad ku qorto ma joogo ninkii teeradeer waa aqli askari horta anu kutubta walaalka garan maayo waa talabaad mar hore waxaan kugu iri war mubaarigu diintaada yaanu binaadmiga horto go'aan binaadmiga isaga kan noo khalad iyo saxba uu leeyahay halkan dhig isaga waxaan binaadmiga halkan noo هذا النادر والله horta in hadalka qofka laga jarno waa ceeb dhowr jeer aan ka cundaarnaya fiiri ka jiro marrabo laakiin fiiri anu kala ma hadlay aragti shakhsi qabo boqol kuntu qof qabi kara in feer ila aan hadii arkaan boqol kuntu kala qabi kara mar walba arkaan inay laabta igileen haagsiyan aragti shakhsiya way taas waxaan ka hadlay waxa kutubta ku qoran kutubtan ku sheegana kutub ma la yaani ma bukhari muslim ku qoran yihiin hada bukhari muslim ha ku qoran kitab quraanka marka laga soo tago waa kitabta ugu saxsan way maxaa bukhari okay way diidinti xadiista dilka murtadka ku qoran soo diidilku meel shuruud lahayn maxaa shuruudaha diin ina diinka baxdo shuruudiis kuna ku shay ma ina diinka baxdo kuna ku shay imika tuuga ma leeyo ilaahay quraanka ma ku wari wasar tufaqda waydiihuma hay hadii lagu arko dad yar meel ka xadiya magacanta la saka jiray meel shuruud lahayn sax shuruudii ku qoran yihiin quraanka may kuma qorna sida islamada xadiiskana shuruudihi ma raacsan laakiin shuruudu uu leeyahay fiqiga marka dib ugu laabato in baab al-murtad marka dib ugu laabato shuruudi way ku qoran yihiin shuruudi waa kuwan ku sheegay asloongaas aad waxa adiga aaminay adiga ilaahay bataridi ka dhaxsan laakiin maalinka soo kala qabato taa walaal wala isugu ka qabanaya waa inta shuruudaha isla dhaqada fiiri shuruudaha isla dhaqada saddex maalin lagu siinayo inaad dib ugu soo laabatay hadda diidana birta laga aslay shuruudaas ma shuruud cadaalad iyo aqal ku dhisan ba mar way maru haddaan ku ogaado fiiri xor baa tahay kuguma xadgudbaayo kuma dilaayo kuma dulminaayo laakiin waa inaad isqarisaa haddaan ku ogaado hal asxaana kuu sameynaya saddex maalin oo jaanisan ku siinaya
kusoo laaban ku leeyahay aniga afkaartayda iyo aaminaadeyda hataa soo laaban weyso birtaan kaa aslaya man what the hell bro way mubaarigo masaladaas murtadnimada doodeedana kuma tala galsanayn haddana doodeeda kulama sii wadayo maadaama wax badan murtadnimada ku saabsan ay iga maqan yihiin laftarkay laakiin intaan ka akhriyaan xog ka hayay aniga intaa ahayd waxaas shuruudahaas ay leeyihiin haddii qofkani uu qofka fadqaliyada darre la yimaado uu noqdo ummadda waa laga qabanaya hadduu qofni qof isagu wixiisa gaarkiisa u wato uu noqdo dee faman shaa falimin waman shaa faliif weyn inaga hawl noo taalla maaha marka masaladaas murtadnimada hadda kulama sii wada kala doodeeda ما waa sax waa ka gudbayna aad ka gudbayna fiiri laakiin suguud waxaan qabaa dhalinyarada ma waxaan odhan lahay hal baan gelaya ha ma waxaan ku yiri anu sida mid kaaga ma soo horjeedo qofka akhlaaqda xun ee dadka dhibaya dadka dulminaya ma garanaysaa nidaamka qasaya oo mashaakilka wada si cadaalad dhaga uga tumaya aniga aan eegay maxaan si cadaalad wax u garaacaya ma faham garaacisteeda hatta cadaalad ku saleysatay ma faham laakiin in la dhaho qof waxaan sababta kaliya aan ku dilay waa iga duwantahay هنا هذا القاعد وعقليات بريمتيف هنا wax ilaah iyo rasuul iyo diin loo tiirin karno ma aha runta fiican mubaarigo walaalkayo intaanu imika waxaan filayaa mana saacadii 5 daqiiqo joogay socotaa mubaarigo masaladina almaaniyada ku soo dhawaana walaalkayo almaaniyada anigu intan ka aqaano iyo sidaan u aqaano intan baadhayay waxa weeyaan war mashaakilada inoo yaala iyo nidaamka dawladnimo aan doonayno dhisano aynu samaysano inagoo wax haba yaraatay meesha ka saarayna inagoo wax diin la haba yaraatay meesha diinta hadii wax ka soo qaadan waa meesha sida dastuurka Spain oo kale adiga laftaadu soo qabto laakiin aynu diinta meesha ka saarno diinta aynu jacaysiga duno way walaalkay wuxuu leeyahay inuu muslimiin baa nahay walaalkay maadaama dad muslimiin ay nahay islaamku waa islaam billah inaad ilaahay soo wada dhigto maadaama islaamku inaad ilaahay soo wada dhigto misalooyinka ummadda imika siyaasaddu dagaal bay galaysaa siyaasaddu waa jangooyin ku dagaalkii bay galaysaa ganacsigii bay galaysaa xiriirkii international relations bay galaysaa dawladaha kale la wadaagayay waxay galaysaa nidaamkii bulshada loo maamulayay waxyaabo ilaahay dudun ummadda waxa laaliyo dastuurku mararka qaarkood uu ummadda booskiga qabanaya jirta maadaama maharika ka weyn ay geysanayso waxyaabo xaaraan aha oo mararka qaar xataa imka ay wada haystaan qisadii markii sanadkii gaajada dhacday mar maxdariin gacantii la isjara la laalay limaada laana baahi baa timi meeshii dadku ay u xadayeen burgala walaalkay waxaan ku leeyahay war ogahayna wadanka xal u doonayso ana sidaas lamada wadanka xal baan u doonaya hal baan doonaya maadaama labadii xal doonayna burgalow qoladan kula dastuurku kitaabka quraanku waa dastuurkii anu waa kasoo horjeeda anu waxa tahay kitaabka quraanku waa biiskii nolosha waa jiridii wax waliba ay ku bees karaysnaayeen dastuur dawladnimo dastuurka dawladnimo markay dejisanayno dastuurka dawladnimo dawaamru shura baynahum buu ku bees karaysan yahayo waxaan daabka islaamku inoo dhigay inaynan dibadiisa aadin inta islaamku shuruudaha islaamku inoo dhigay inaynan burino ka hor imanaynin waa basiid wax weyn ba ma aha aslongaas aynan diinteena ka hor imanaynin xor baynu nahay wax laaliyo waxaan doonayno dejisan kowde tan walaalkay ninkan tufahan gaara qaatay kitaabka aayad gaara highlight marsaday imika in badan oo dhalinyarada kamid ah waxaan isku diiday adiga markaan kula hadlayo adeerkay iyo walaalkay baan ku hadlay si dabiici nin Soomaaliya in adeerkay baata macalmaaniyada boqolkiiba kugu diidano waa diogta kowde laakiin si kasta oo kugu cudur daarayo anu marnaba ma qaba inaad gaal tahay mana oranayo gaal baa tahay in badan oo dhalinyarada aniga ay leeyihiin gaal baa tahay limaada lana burgal gaalnimadiisa ka shakisanta kaas markuu diinteeda walaalkay uu go'aaminayo ee reaction ka yimi aan diinteeda ku qaadanayo ama aan diinteeda ku beeskaranayo ama aan leeyahay spirituality dawladnimada ay qabto madaxu iga jaraya tii walaalkay islaamnimadii baan fahansaneyn ama islaamnimadii baan macna rasmi ay sameeyay tan almaaniyada aad u imka muddo ugu dambeeyay lagu hadalay 2017 markaan jaacada bilaabay 2017 markaan iskuulka baxaan jaacada bilaabay ilaa iyo maanta waxa weeyaan Soomaaliya 8 sano erayga almaaniyada aniga way daba socdaa برعم مرة قال واحد شرح لي سكولة أنت طابور أرضي درس فلو نشري نكاك نالكي ساداونا وعلماني وفلسفة قال لي مكهد لا هل كان أديك مكان كان بالقول مرة يا تيك توك اللي قام ما أنا قال كسر ولا كيف ليش سوق قاري لكن مرة ما يدعونك وسير الدين تيدا إيو واحد أي علم سؤال قليا كذا ولا كيف برجلو نظام كدستور كولا كيف إنه تجسنا إنه واقعا ما أنت علم الفقه وأنا يكون علم الفقه وقبل يسوي حويا قربت للشوقو إيو نصوص الدين تين لا يسوء وأنا يقول مفتيج السياسة كفتوانا يا وكتيت يدرجو يا قان يا دون أرك سر يا مفتيج ومدة كلام مجتمع فتوانا لماذا؟ لأن السياسة جبي جد بقى والله بدرون ولا خلا دورنا يو
iyo masiibo weyn oo xal u baahan degdega maadaama sidaa tahay mufti yaro shacabka u fatwooda sidii ay u istijoon lahaayeen iyo sidii janaabada isaga meedhi lahaayeen kama fatwoon karayo kama fatwoon karayo walaalkayo marka waxaan ku leeyahay war dastuur aynu inagu dejisano gacmahana aanu ku qorannay bayskeena iyo xayndaabkeena islaamnimada ku bays garaysan haddana halkaa u fiirso xayndaabkeena islaamnimo ku bays garaysan haadhe nin kasta oo maanta Soomaaliya oo wadanka jooga ama Soomaaliya ha ama Soomaaliya ha ahaado ama Puntland uu si caadi ah muwaadinimo loo xorriyad loo dhameystiran ugu noolaan karayo inagu midajisan karna haddii alla ma midajisan karna waxaan u baahanahay islaamka dacal yara dhigan inaynu calmaaniyad doonano calmaaniyadu ma wax meel yaalo la soo qaadanayo waxa weeyaan inta diinta meesha ka saarno inagu aanu fadhiisano aynu fikirno calmaaniyad yaan la moodin ma ceel laga soo dhaansanayo waxa weeyaan inuu diinta halkan naga yara dhig kadibna inagu tiro fadhiisano aynu fikirno haddii alla niyo may islaamku waxyaabo fara badan baa ku jiraan maanta dawladnimo laga qaadan karo inuu waxaan doonayaa dawladda inuu noqoto dawladda islaamku qayb ka ah inaan anigu tan fadhiisto aqligayga meel ku dejisto islaamkuna halkiisa aniga iga joogana waa dood kale aan fahmi karay labada dood dacalkibadu janjeedha marka adag muwaariga ahaanta ay ragiska celintina waliba ka saar raggan kulaba ku dilaya iyaga halkan naga dhigo urkooda ama ma aan rag kama hadlaayo Firi anu rag kama hadlaayo waxaan ka hadlaayo waa wax qoran ma fahamta rag kama hadlaayo waa ku dilaya ninku dhahay wax ila yaraanteena man la dilay dil ma noor Firi laakiin waxaan ka hadlaayo waa wax qoran wax qoran way aadro Firi adeerka marka laakiin saa dhahdid Firi marka dhahdid labada shardiya hadda isiisay oo aad dhahdid nidaamka aan samaysanayno ma shariicadan ku jaagoynaa iyo diinta mise waxaan ka dhiganaa mid aan anaga u madax bannaanahay anigu waxaan ku leeyahay waxaan ka dhiganaynaa mid aan u madax bannaanahay aan ka madax bannaanahay waan ku soo weyna sababahan uga cararayo waa sababta markii koowaad ba aan uga cararayo shariicada sababtoo isfaham daradii iyo kala aragti duwanaanshihii baa stiil meeshii yaalo ma garat macnaha wixii aan ka soo cararnay baan xagga ka soo wareegnay dhanka kale aan ka soo gallay waxba isma bedelay weli dadkii sidii bay u kala aragti duwan yihiin welina halkoodii bay kala joogaan iskuma imaan karaan waxaan taaganaha warnimo iyo mid sameeyey waxyaalaha maarata xataa aad u aragtaan inay diinta ka soo horjeedaan oo extreme yihiin oo la dhihi karo war waxaas kaga soo horjeeda maanta intii la fiiriyo haddaa rabtaan diidaba laakiin ugu yaraan si aydan berri isku qabsan oo berri idinka dhexdeena muran uga imaan waxa aad ku heshiinaysaan yuusan noqonin arrin caqiido shuqul ku leh sababtoo caqiida hadda meesha gasho kala aragti iyo faham duwanaanshaha berri imaanaysa iskuma tanaasuli kartaan waan ogahay ninna caqiidadiisa kama tanaasulayo fahamku ka haysto meeshiisa bata marka mushkiladda waligeed kama dhamaanayno si aan u wada noolaano war wixii aaminaadeena iyo diinteena haddii aanu isku heshiin weynay waan anigu taydi kugu qanci waay adna taadi ugu qanci weysay walaalow taada hayso ilaahay baa kala xisaabtamaya caabud cibaadayso gurigaaga la joog anigana sidoo kale danta guud iyo meeshaan ilaahay nagu abuuray sidaan isaga hagaajin lahayn oo nidaam u samaysan lahayn caalamka iyo bulshooyinka adduunkana ula jaan qaadi lahayn aan inagu dib isugu soo laabano mar aan ka samaysano luuqad yar oo basiida very simple ah aanu berri haddii maarta wax isbedelaan dhihi karno okay mushkiladii shalan haysatay waa isbedeshay maanta mid cusub baan haysata taa hore waa ka tanaasulay tanaan maanta xal u raadinaynaa wixii aanu shalay samaysanay maanta ka bacdi looma baahna mashaakilka waa ka soo gudubnay iska tuur waxa soo socda maxaan ka leenahay oo mashaakilka 2 sano 3 sano soo socota dhici kara maxaan shuruud ka sii dejin karnaa maanta tusaale ahaan ba waxaan badareenaba inay mashaakilo waaweyn soo socdaan oo qaar ay sameyn rabaan magaraysa alaabtii kacdoonkii camal magaraysa mudaharaadyo iyo wax soo wajahayn shuruudo yar ma iska soo dejinayna hadarna waxaan leenahay cidii waxa samaysa mudaharaada laakiin cidii dadka antooda dhacda nuutin samaysa dadka wax dhibaato u geysata hadhow dhibaataas la kulmi doonta marka waa wax yar oo uusan qofna dhahayn ilaahay baa loo gafay sheekayga loo gafay kitaabkana loo gafay rasuulkii baa lagu xadgudbay cidna ma dhahayso وقف صومالي يرو فرسين بلا مشاكل كأننا حلنا لا ما أنا خلدني ماشي أكو جيران بقول مارجو خلدنت أنا قاعد أحكي مركز كتاو 100% أوكي ولكن أوكي إسلام كي أريبات كسوكو هذا عقيدة أريبات كسوكو إسلام كي جيبي سيبة
caqiido masalada siyaasaduna intii caqiido la xiriiro ka badan oo masala fiqiya waaniga ku sheegay kulay afarta base ay siyaasadu ku baskaraysan tahayba marka siyaasadda ay noqoto afartuba waa fiqi alam wa amruhum shura baynahum masala fiqiya iyagu hata shadaanu yani xayndaabka islaamka un ka bixin المسلمون على شروطهم ومسألة فقهية اللهم صل على محمد الضرورة تبيح المحظورات ومسألة فقهية وحي الضروري مركي مادان ووحي حرام تابع حتى حلالو بي تنكلها خف الضرين ومسألة فقهية عقيدة عقيدة والوكر دوية ولا سوها يا الشاعرية السلفية وحي سوها يعني إلهي ما سمدوا تشوغا مسا إلهي ميل الله مسوغايو ندام كنا الدولة دي ممحوقة باهي انتو ميل فرسين وكدو دا إلهي مسمدوا تشوغيين ميل الله سوغايين الله سوغايين مسؤولين نجنا لا حريرة مع عقيدة علماء يقول كل فهم كدوينهن مسؤولين دولة لماذا لا حريرة معه مسؤولين دولة لماذا لا حريرة وحوية ورمحاي نروح حلالة محاي نجح حرانة محا مسؤولية دي واجب مواد كسارنا محا مسؤولية دي واجب سارم وقف الدولة ده محل كهيئة محا كذا لو كل فهم دوينهن وما نقول يسوي يعني اللهم صل على محمد وما نقول يسوي يعني عذر دار ونقول ما يسمى بارجو عقيدة أشعرية سلفية لما تقول بيقول هو من سواء وحين سفوين إلهي سفوين كيس ما الله سوى مثلا الله ما سوى تولد من المحاول يقول أنت إلهي سفوين كيس nothing لما حلو وعايز كوا يعني إلهي مسمى شو مثلا الله ما سوى لما حلو عقيدة ومسرجع لكن مركز الدستور لقى هذا دستور كأفرت قضبه كهذا أفرت قضبه فقهية ومحين نجح حرانة وينجح ممنوع عودا كممنوع كوتربان نقنايا maxaa inoo waa qof waliba flexible iyo soo dano uu sameyn kara maxaa xuquuq iyo xasanadu qof xuquuq u leeyahay qofka muwaadinka ah muxuu si isaga mas'uuliyad iyo waajib saaran intani waa fiqi walaalkay kala duwanaanshiyaha fiqiguna naxariis baa uu mid ugu jirta oo mas'ala kasta ugu fudud ay ugu dhowdhowbayno qaadana ama guud ahaan madhabkeena shaaficiga ku beeskareenaaba ilaa umad shaaficiga baa ka Soomaali ahaan mas'uuliyad fiqiga madhabkeena shaaficiga ku beeskareenana marka taan ku leeyahay anigu ma qabo waxa weeyaan ereygan caqiide aad walaalkay la soo boodayso وما نقول كرع عسكر شاء الله ده اليوم يدين تلاقي بنان كهيني شوكتو إنه إنه عقلي تدجسنا مالك فري واحد نقول إنه كلا قرن تاو كودي دني مثل ما إنه كودي دني ولكن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إنه ما أنت مركب ضد المسلمين أنا هاي ما إسلام كإنك إلى حاجة مثل إنك إسلام كمعمولينا هذا لأن إنك إسلام كمعمولينا تو الدين تحت تصرفنا يوصل ودونين وإنه كي النبريس اللي كريسان كعيادة قرن إنه بدل هذه بعتها معه إيه قديد دينتو إنك قعدتنا يوصلوا إنه وأنا كنت تصرفنا نسيم دونين كيرينه هذا لنا هي إسلام كو أنقنا معمولة يا أنقنا حدا يا أنقنا حكومة هذا وإسلام يعلو ولا يعلى عليه وياهي وحركني إلهي جاهي أنك إن هاجي يعني ما قرنا مالك كي أنتي دود عرنا يسنيو دينتو بناك إسكت شوكتين وين وحكي لديك سن لو قالوا كلام إنهم كودي ده هذا لنا إسلام كنا قاعمين إنه كفر سمينا ودود جار هذا لكن إسلام كو يهي كين هاجي شروعي حير نظامه إلهي سبحانه وتعالى وينود شيء تهوي إن هاجي هذا وأنا جاي أدوبي نص من هاي تيجي وينو ده هاي يعني إنه ما هاي إنه ما معمول هنا يجي لما ده قضبوا لك وكودي دنا وقضب كست هذا وكودي دنا هنا وحويا دي بقى تاجن تهي أنه واحد يجسن إسلام كانوا أوبا كسيي بقى وكودي وأمرهم شورى بينهم كسيي ومسلمون على شروطهم كسيي وكودي كده يا موارد ومنها سمين ورحين داب كإسلام كون برنامج كيسة هاو بحن واحد دينتا أو توصل أهري من أيها السماينين أدوكنا مركو راد يقول على تري واحد حنا إلهي وديده أخلق يقولوا وديده يقول راعي سبب تدوك بانتي دينتي لدولة ما كده حصار تواحد دينتا هيجي عقيدة قلوا أشعرية وهابية يسقوا هي مسؤولين كيف فقوا مسؤولين سياسات سبب تدون سد دينتي النظام كين الدستور كانوا يجسنا يجيب دوغا نقطة هاي تقول لك وسد حسوا رد بنقبع نورت آدنو waxa isku hayaan gurubyada Soomaaliya jooga tusaahan ashariya salafiyo kala tusaalo soo qaato waxa ilaahay meesha joogo inta kale isku hayaan saaxiibkay waxa isku hayaan way badan yihiin waad ogtahay hadayna tusaalan kaaga soo qaato waliba tusaale aad iyo aad muhiim ah marka laga hadlayo dhanka shariicada iyo xukunka islaamiga ma fahamt annagana saameyn nagu ma laha waa runtaay saameyn nagu ma laha ilaahay inuu ninu arko inuu samada joogo iyo inuu ninu arko inuu meel joogo iyo inuu ninu arko inuu isaga la joogo qof walba sidoo uu arko iyo meeshuu ka filayo isaga anfacaysa حبت صامينا يحبت دباتة منكم هاي سنور الشيء ما قرأت أنا ملاين ماي إن الجيران لبني إنه ما تسكت دلا أنت سيف اسكت سوقاتان إلى هاي عركو عرش بالجوجا محاوت الملل بالجوجا محاوت الهبين كي بسود دقاي إحنا ملاين ما ينسكت خبصنيس وحال اسكت هايستو ولا اسكت دلا أيو وعركيس هذا مال دوي بالكم سوريجي علماء أبوه والعلماء الصوماليين ده حكم ده شيخهم
maalin cadba video tiktok dhexdiisa laga lahaa dad dhan intay soo galeen qoom dhan oo guuraya waxay dhahaan argaalka ay ima waa ku dilayna sababta ay u dilayaan wax kale ma aha kutubta ay nimankaas akhristaan waxa ku qoran oo akhriyo isla kitaabka akhristaan ay waxaas ku qoray xabad ma sameyn translation cusub ma saarin tafsiir cusub ma saarin isagu ma soo qorin kitaabka iskama laha wixii meesha ku qornaa buu akhriyay waana huba kitaabkaas nimanka dhahay ar umar ima waa ku dilayna inuu guriga u wada yaalo hadda aadan hadda ku weydiiyo nimankaas maxaniga ku dilaya ma garanaa ila jawaab yahays waa iska waali casway maxaa u akhrisay way ma fahmaysa mushkiladaha noocaas oo kale ana maaha wax easy ah nimanka iyagu aan maanta xabad xukuna noo hayn cidna u talin ee magaalada ilaahay kala joogo oo dalkii deeqi waa inay ku wada noolaadaan dal xukuma inaad rogacda darabta ku sheego kuma aamini karo wax macquula ma sababta aan ku leeyahay fiiri aan ku dhameeyo sababta aan ku leeyahay caqiidada halka diinta xagga naga dhigna anu kuma diinta ka halka naga dhigna xogaa ma fahmaysa si kala dadku u fahmi karaan adiga ee diintaada adiga ku taalo adiga cibaadadaada iyo hawlaha adiga ku taalo anu kuma soo fargelinayo laakiin maadaama aynan isku fahmi karin oo xaaladaheena ay maanta maraa inaan dhahno waa isdilayna in la dhaho mooyo qaar baa la dilaya maalin walba halkaa iga raado diintoo dhan islaamkii oo dhan baynaan joogtay isku fahmi karin mise waa masalooyin gaar ha masalooyinku waxyaalo qaar waa la isku fahamsan yahay weliba wax badan waa la isku fahamsan yahay laakiin waxyaalaha la isku fahmi lahayaa ee la isku diday waa waxyaalo ragaadinaya dowladnimada waa waxyaalo ragaadinaya social justice waa waxyaalo ragaadinaya wada noolaanshaha iyo ammaanka ma aha waxyaalo kaftan gelaya sababtoo ah waa waxyaalo muhiim ah aan la isaga tanaasuli karin ma jiro maanta nin dhahaya warniyo anaa khaldanay waa tanaasulaya ama labadeenu dhexda isugu imaano dhexda kaliya oo labadan nin u imaan kartaa waxay noqon kartaa system iyaga ka madax bannaan oo aan muqadas ahayn ay af Soomaali ku wada sheekaystaan nin walbana afkaartiisa gaarka u meeshiisa ku haysto haddii inaad arkayo aan ku dhamay aad dhahdo okay dhexda isuguma imaanayo meeshii waxa taalo waa kala duwanahay mana isku tanaasuli karin inaad arlaha ku dhashay maxaa noo xala way ilo nolol baan rabnaa dal baan rabnaa inaan dhisano dawlad baan u baahanahay ummad dhan baan mustaqbalkeedina maanta aniga adiga waxaan matalaynaa dhalinyarta Soomaalida TikTok ku jirta waxaan ka hadlaynaa ugu yaraan aan isku aragnaa labadeenu inaan ka hadlayno dalka mashaakilka sidoo loo xalin karo maxaa xal noo noqonaya marka waa kala duwanahay ma isku tanaasuli karno waxaan isku hayno wax ka duwayna dhexdeena ma keeni karno waa wali casinaad argaan way maariga walaalkii laba su'aalood kala harsan laakiin su'aasha inteenan ka bixin jawaabtan markaad bixisaytan ka bixin walaalkii horta diinta la isku ma haystee masalooyin gaar ah la isku haysta masalooyinka gaarka ana darafyo gaar ah isku hayo ummadoo dhan isku ma haysato darafyo gaar ah isku hayo ummadoo dhan isku ma haysato maariga su'aal baan ku weydiinayaa manhajka wahaabiga ama ictisaam aan idhaahdo iyo suufiyadu halkii kala taagan yihiin xanta ugu badan isku hayaan badan isku caayaan ba anu aad u xifdisanayo inay dhahaan waa mushrikiin iyo waa quburiyiin wahabiyadu kuwan kale ay dhahaan waa khawaarij ma faham halka ma kala taagna Soomaaliland waxa wasiir u ah oo wasiirka diinta iyo waqafta Cabdullaahi Baasha oo nin ictisaama wasiirka wasaaradda warfaafintuna waa Axmed Yaasiin Xaaji Cali ayaan la oo nin qaadiri oo markuu furayo shalaadka ku fura labaduba ummadda ay u shaqeeyaan fahanka diinta ay ku kala duwan yihiin iyaga isku ugu kala duwan ummadana saameyn kuma mid walba shaqada ummadda u hayu qabta hadhow markii halkan ka baxaana masaajidadooda si doonaan haysaga naqdiyaan taamaanadu waxa weeyaan dastuurka exactly sababta Soomaaliland waa Almaani waa la kala celiyay nimanka Almaani hanahaarin min Almaani sababta dastuur baa la shariicada ku hoostagtaa jaarisiga helay sidii super gaw بوينتو وحوي walaalkii mubaarigo warnimo yahow ummadan waxay u baahan tahay inay noolaato mashaakilna wayna haystaan waliba dastuuradeena de gacanta la nagu jiro inagu maynaan wada qoran inay gacanta la nagu jiro waa ogso dirag jabtarsama lagu taliyayna oo wali maynaan wada xabanaanaanin aqeedada diimeed ama manhajka diimeed aad haysato haade adigu walaalkii uu la joog bartaa cid kugu diidaysa ma jirto haddii xataa wadanku waa Almaani noqdo dhado wadanku waa Almaani iyo diintu siyaasadda ma dhaxman karto masaajid kasta joogta waxa gaw sheegaysaa anigu waxa gaal baan warkaayo umalma iman karayo baalka oranaysa dadku waa gaalka ay joogtahay taa cidina kuma diidayso noloshiyo maamulka ummadda laakiin markay noqoto
adeer wixii baysaskii islaamkana waa la isla garanaya la iskuma khilaafsanaa asalada islaamkana la iskuma diidana masalooyin faraca baa la isku diidan yahay baysaskii islaamkana la iskuma diidana masalooyin faraca baa la isku diidan yahay masalooyinkana adeer ha laga wada socdo ha lagu wada joogo heedhe ummadana bayska dastuurkan dujisanaynana si guud bayska diinteena ha ku fadhiyo weliba maxaad iga soo wicidee weliba saasaa waxaan ku leeyahay weli waxaa jira kaadh calmaaniyadeed oo aanu islaamka ogolayn oo dhex mara dastuurka somaliland iyo ka soomaaliya meela socota walaalkew annagu baan kugu ihi markaa waxaan maanta tusaale ugu nahay soomaalida haddaan nahay somaliland in wahaabi iyo suufi oo ah labada daraf ee ugu fogfogay maanta nidaamka jiritaanka soomaaliyeed isku hayaa ay nidaam dowladeed ku wada hoos noolaan karaan labadubana ay dowladnimada qayb ka noqon karayaan iyadan calmaaniyad iyo baraayo iyo islaamka dibadda inooga saariyo waxbaa la isku hayaa meesha aanay iman yacni waa mushkilad xal calmaaniyadda ilaahay ha barakeeyaan lena iyadaa taas keentay labada wadaad haddaan la kala qaban lahaa birkakida marigu ku baxsan maysid maarigowto ku baxsan mayside waa islaam badax tiran weeyaan wayla socotaa walaalkew mubaarigo markaa walaalkew warishaynta culimadu ma wixii mujtamaca khuseeya mise walaalkii waxaan mujtamaca khusaynin wixii mujtamaca khuseeya ee fiqiga la xidhiidha waa masalooyin kooban tan iminka ridada aad ka hadlay sidoo kale kowdhe iyadana waa loo wada joogaa dee culimadu inteena soomaalida qorayna adduunka culimo ahay adduunka culimo kalaa ku noole anu imika xataa culimada soomaalida si aan uga yareel baxayo culimooyinka kale adduunkan ku xidhanahay ilaa halkan turkida culimadooda qaar kamid waanu isnaqaanaa kowdhe walaalkew war dhammaan masalooyinkana xal weyn ilaahay subxaana watacaala suuragal maaha walaalkeyow masalo ama xadiis saxiixoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo saxiixoo la hubo ama aayad qur-aan oo meel taalla in tafsiirkooda iyo fahamkooda la khaldaa waa suuragal maaha laakiin intay noqdaan wax khaldan waxaan ummadda iyo waayaha la joogo la jaan qaaday inay noqdaan suuragal maaha ilaahay subxaana watacaala inuu soo dejiyo waxaan waayaha iyo ummadda caqligooda la jaa ibnu rushd baa laga hayay ibnu rushd baa laga hayay suuragal maaha ilaahay intuu shareeco inoo soo dejiyo intuu caqli inoo sameeyo inuu soo dejiyo shareeco caqligii khilaafsan nidaam caqligii khilaafsan inuu raacin inuu ilaahay inoo soo dejiyo suuragal maaha kowdha walaalkay marka culimaa is haysa su-aashaa ah iyo culimaa wax ku kala duwani uma noqon karto tusaale in la kala saaro diinta iyo dowladnimadii culimada is haysa su-aalan weydiiyo su-aal oo aan barnaamijka shughul ku lahayn su-aasha waxaa weeye somaliland dastuur soo ma laha dastuurkaas ma banaynaya inaa qof muwaadina disho maya labadaa wadaada waxa kala hayo waa taas wey asal ahaanba islaamka marka la joogo nidaamka dowladeed ee meesha ka jiray sida rasmiga nidaamka dowladeed ee meesha ka jira walaalkayo ayaa xukunkan lahay ciyaalkan meelahan ka qalqeeliyay iyo dadkan adiga meelahan kaaga soo qoraa xukunkan male shacab male asal ahaanba xukunkan murtad baa la dilaya waa arrin dowlad la xidhiidha dowladnimo rasmiya oo ummadda kala hagaysa oo dadka xaqa u bayaamin karaysa oo wax walba qaban karaysa markay jirtuun baa xukunkani shaqeeya shacab dhexdooda xukunkani kama shaqeeyo waa kow soo maaha waa qodobka labaad ee dastuurka somaliland isagoo dastuur islaama oo dad muslimiin ay haystaana walow kaadha yaryar oo calmaaniyadaysan oo dhexmala ay jiraan oo aan aad dagaal ugula jiro oo aanan xataa qarinin haddana dastuur islaama oo qodobkiisa koobaad mise qodobkiisa labaadba uu yahay wax kasta oo diinta islaamka kasoo horjeedo dastuurkan ku xusan waa ka kac weeyaanba uu yahay heedhe ayaa wahaabigii iyo suufigii oo ahaa labadii darafee ugu adadkaaya maanta mujtamaca soomaaliyeed dhexdiisa isku haystay ay ku wada nool yihiin walaalkayo oo labaduba ay ummaddii u wada shaqaynayaan oo labaduba ay wasiirro u yihiin oo bari hadday doonaan xilka madaxtinimo ay gaadhayaan laakiin midna aanu wixiisa iyo manhajkiisa iyo fahankiisa dadka ku jujuubaynin